بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد marka hore Ilaahay ayaa mahad leh maanta waxaan joognaa maalinta ugu dambeysay imtixaanka fasalka 8aad sanad dugsiyeedka 2021-2022 oo qaadayo agaasiga waxbarashada gobolka Banaadir waa sanadkii 3aad ee uu imtixaanka dugsiga dhexe uu qaadayo si guul ah oo qurux badan ayayna nagu soo gabagabowday qaybta hadda aan joogno waa qaybta ardada baahiyaha gaarka qabta gaar ahaan ardada indhoolayaasha agaasiga waxbarashada gobolka Banaadir gaar ahaan xafiiska imtixaanaadka waxa uu u fududeeyay facilitieski ahaa inay ka qayb qaataan imtixaanka shahaadiga ah si ay dhiirigelin ugu noqoto oo maadaama intaas oo sano ay wax soo baranayeen dugsiga dhexana oo dhamaaday inay helaan dhiirigelin oo ay la mid noqdaan ardada kale ee caafimaadka qabta ama xubnahoodu dhameystiran yihiin taas markay isagoo ka duulay agaasinku wuxuu go'aansaday inuu ardadaas imtixaan ka qaado gaar ahaan baahiyooda ku beesgareeyo oo looga qaado farta bareelka oo ay wax ku bartaan taasna waxay keenaysaa inay ardada kale la mid noqdaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo intii ka qayb qaadatay gaar ahaan iskuulka indhoolayaasha Al-Nuur oo ku deeqay qalabka lagu daabacay imtixaanka qaybna ka qaatay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo iskuulka Al-Basiir iyo iskuulka Al-Nuur bayagoo wada jira in ay soo gaarsiiyeen ardadan inay la galaan ardadan imtixaanka ardada caafimaadka qabto indhaheedu u shaqeynayaan inay la mid noqdaan oo imtixaanka hadda laga qaadayo ardada indhoolayaasha ama baahiyaha gaarka qaba iyo ardada caafimaadka qabto indhahoodu u dhameystiran yihiin ama xubnahoodu u dhameystiran yihiin waa isku mid imtixaan isku mid ay galayaan marka inay heerkaas ay soo gaarsiiyaan oo imtixaan u gaar aan laga qaadayn aqoontooda iyo xirfadooda ay la mid dhigeen ay soo gaarsiiyeen ardada caadiga wax u barata ay kala mid dhigeen aadaan ugu mahad celinaynaa iskuulka Al-Basiir iyo iskuulka Al-Nuur labadaba iyo gaar ahaan dhammaan bahda waxbarashada aadaan u mahadsantihiin waxaan u rajeynayaa insha Allah taala guul iyo inay hore u sii wataan waxbarashadooda inay isniyad jabin oo inay isdhihin naafa ayaa tihiin ama baahiyo gaarka qabtiin oo ardada kale ay la mid noqdaan ayagoo waxbarashadooda sii wadanayo waxay uga duwan yihiin ma lahan imtixaan isku mid ay maanta galayaan oo ay dhammaan u wada siman yihiin sanadka dhawaana sidoo kale u galaan wax ka dhacay oo imtixaanka ku haran ma jirin sanadkan sidoo kale aan rajeynaynaa insha Allah taala aad u mahadsantiin